saaxiibayaal halkan ayuu ka bilaabanaya filimkeena maanta gabadhan waxaa lagu magacaabaa Kayla iyada iyo saaxiibteeda ayaa halkan taagan waxayna ku qaateen waqti waxay doonayaan inay guryahoodii ku laabtaan kadibna iyada iyo saaxiibteeda halkan ay isku macsalaameynayaan si ay u kala tagaan saaxiibteeda ayay ka tagaysaa Kaylana way soo fiirinaysaa saaxiibteed intaysan dhaqaaqin ka hor waxay maqashaa cod kadibna way fiirinaysaa wax arkaysaa saaxiibteedii oo la afduubtay gaarigana la saartay waa ay soo jeesanaysaa laakiin iyadii ayay ku dareen ugu dambeyn Kayla xaaladan ayay ku jirtaa waa ayna suuxsan tahay ma garanaysa waxa lagu sameeyo laakiin filimku waxa uu tusayaa iyadoo qayb jirkeedii kamid ah wax laga bedelayo dhagaha ay haystaa waa inay qeylinaysaa ultrasonka ayaa yeeraya waxayna ku jirtaa boxkan idin muuqda saaxiibayaal waxa ay doonaysaa inay halkan ka baxsato ugu dambeyn boxkii ayay ka soo baxaysaa Kayla waxayna dhexda uga jirtaa kayntana aadka weyn way soo gurgurinaysaa iyadoo aad u baqsan mana garanaysa halkan waxa ka socda isla markiiba waxay soo xasanaysaa saaxiibteed waxayna ogaanaysaa in saaxiibteed ay kayntana ku jirto maadaama labadoodaba la soo afduubtay gacmaheeda iyo jirkeeda ayay fiirinaysaa Kayla mana taqaana intii ay suuxsaneed waxa lagu sameeyay Kayla waa soo ordaysaa waxayna soo dhexgalaysaa kaynta iyadoo raadinaysa saaxiibteed waxayna aaminsan tahay in saaxiibteeda kayntan ku dhex jirto balse nasiib darro markiiba waxay arkaysaa qofkan qalfoofka meydkiisuna oo halkan ku noqday qolof lafihii qofka bini'aadanka ay aragtay isla markiiba way soo cararaysaa waxayna ogaatay in halkan xaalad aad u daran ay ka jirto waa ay soo ordaysaa markale Kayla waxayna dhex lugeynaysaa kayntii ilaa markii dambe gadaal looga yimi labadan gabdhood ayaa afduub ku sameeyay laakiin markiiba waxay u sheegayaan inay la mid yihiin mana garanaya cid halkan keentay isla markiiba waa ay farxaysaa waxayna arkaysaa in gruubku aad u badan yahay Kayla gabadhan waxaa lagu magacaabaa Shina isla markiiba waxay weydiinaysaa wax telefoon ma haysatay laakiin markiiba waxay soo xasanaysaa Kayla in telefoon haysay way soo cararaysaa iyadoo aad u ordaysa kadibna waxay imaanaysaa kartoonkii ay ka soo baxday way ka raadinaysaa laakiin ugu dambeyn way ka weynaysaa waxayna ogaatay in gruubkii soo afduubtay ay ka qaateen telefoonkeedii aad ay u niyad jabsan yihiin labadan gabdhood maadaama ay telefoonkii waayeen isla markiiba Kayla xaaladeeda ayaa isbedelaysaa gacmaheedii waa ay gariirayaan waxayna dareemaysaa in meeshan ay halis ka jirto iyadoo dhan waa isbedeshay kadibna waxaa ogaanaysaa in labadan gabdhood mid la dilayo uuna soo socdo dilaagii faaska watay isla markiiba dhulka ayay ku dhacaysaa waa ayna suuxaysaa Kayla cabaar kadib waa ay soo kacaysaa Kayla indhaha ayay kala qaadaysaa kadibna waxay arkaysaa labadii gabdhood oo mid kamid ay ag taagan tahay waa ay soo jeedinaysaa waxay ku leedahay aawe gabadhii kale laakiin waxay u sheegaysaa in Shina ay tagtay markii ay suuxday kadib mana garanaysa meeshii aaday isla markiiba waxay weydiinaysaa sababtii ay u suuxday laakiin waxay ku leedahay ma garanayo waxaan dareemaa cabsi kadibna waxaa arkay nin faas wato nagu soo socdaa weli ma fahansanaa Kayla laakiin system ayaa maskaxdeeda lagu xiray ogaanaya marka ay xaalad kusoo wajahan tahay filimkana saaxiibayaal waa filim game ah Kayla hal mar waxay arkaysaa ninkan faaska wata waana ninkii ay ku arkaysay riyada waa isku naxaysaa isla markiiba kadibna saaxiibteeda ayay tusaysaa ninkii waa uu kusoo jeesanaya laakiin markiiba waa isqarinayaan Kayla weli waa ay ku wareersan tahay qaabka ay wax u socdaan laakiin marka saaxiibteeda ay koranaysa waa inaa meesha ka cararnaa laakiin way ka diidaysaa waxay ku leedahay halkan ayaan ku qarsoonnahay dilaagii faaska watana waa uu soo dhawaaday waxa uu kusoo socdaa meeshii ay gabdhuhu joogeen isagoo raadinaya waa uu soo dhawaaday kartoonkii ay ku dhumanayeen laakiin markiiba madaxa ayay la baxaysaa waa ayna fiirinaysaa Kayla markiiba qori ayay ku turayaan dhinaca kale si ay u marahabaabiyaan isla markiiba waa uu soo jeesanaya laakiin markiiba faryeedii waa ay gariireen Kaylana waxa ay dareentay in saaxiibteed la dili doono saaxiibteed ay fiirinaysaa wejigeeda dhanna waa uu isbedelay ilaa markii dambe ay suuxday isla markiiba waxay aragtay saaxiibteed inay suuxday waxaan isku daysaa inay meesha ka baxsato ninkiina waa uu arkay gabadhan meeshay joogto laakiin markiiba way ka cararaysaa waa uu soo dabagelaya isagoo faaskiisii wata ilaa markii dambe uu faaskii uu gacanta ku hayay uu kusoo tuuray kadibna faaskii waxa uu ku dhacayaa geedka faaskii ayay soo fooqsanaysaa ilaa markii dambe isku dayday inay ninka ku dhufato laakiin waa uu ka qaadayaa dhuunta ayuu qabtay gabadhii yareed waxa uuna doonayaa faaska uu wato inuu ku dilo dhabanka ayuu ka saaray ilaa uu faaskii ku kala jaray halkaas ayay ku dhimatay gabadhan dhulka ayay ku dhacaysaa isla markiiba waa uu ka tegay ninkii faaska watay gabadhii oo meyd ah halkan waxaa jiifa Kayla waa ay soo kacaysaa mar kale kadibna waa ay soo cararaysaa ilaa ay u timaatay saaxiibteeda oo meyd ah waa isku naxaysaa wayna iska ooyeysaa mar kale waa ay soo cararaysaa Kayla waxayna soo gelaysaa duurka iyadoo aad ordaysaa balse waa ay jahwareersan tahay ma garanaysa jahada laga xigo waxayna dareemaysaa cabsi in qof agteeda marayo ugu dambeyn halkan ayay istaagtay Kayla kadibna waxay arkaysaa meeshan bannaan kaynta ayay kasoo baxaysaa waxayna imaanaysaa meeshan cidlada ah Kayla isla markiiba waa ay soo ordaysaa kadibna waxay imaanaysaa birtan halkan taala isla markiiba waxay isku dayaysaa inay meeshan ka gudubto laakiin dhulka ayay ku dhacaysaa Kayla aad u daran ayaa meeshan ka yeeraysaa ultrasonic soundkan ayaa qaylinaya waana Kayla aad u xoogan qayladiisuna waxay u dhacaysaa sidaan madaxii dhan ayaa wareeray halkan ayay ku tiirsatay waxayna fiirinaysaa qalabka meesha ku xiran waana xuduud aan la dhaafi karin halkan lama rabo inuu halkan qof ka baxo ilaa markii dambe ay aragtay gadaasheeda dambe oo gabadhan ordayso ninkan ayaa baxsanaya waxaana rabaa inuu dilo isla markiiba waa isqarinaysaa iyadoo aad u naxsan gabadhii waa u soo dhawaanaysaa laakiin markiiba ninkani waxa uu kusoo turaya faaskiina waxa uu ka galayaa gabadhii dhabarka way ooyeysaa waxayna ku dhacaysaa dhulka iyadoo faaskii uu ka taagan yahay isla markiiba ninkii dilaaga waxa uu salaamayaa Kayla iyadoo aad u yaaban ayay sanadka ka qaadaysaa mana fahmayso waxa uu ka wado saaxiibayaal si
filimka u fahantaan meeshan waxaa la isugu keenay niman faasas wataa iyo gabdho lasoo afduubtay. nimanka faasaska wataa mid walba waxaa lagu hagaajiyey inuu leeyahay target gabar ka mida gabdhaha ayuu dilayaa, balse nimankan dilayaasha dhexdooda ayaa iskhiyaamaya. mid kasta waxa uu rabaa inuu dilo gabar aan ahayn gabadhii loo diray si uu ninka kale ee saaxiibkiisa uu dhinto maadaama la dilay targetkiisii. ninkan hadda waxa uu dilayaa gabar aan targetkiisii ahayn, laakiin targetkiisu ninkani waa Kayla. way baryaysaa waxay ku leedahay dilin, laakiin markiiba Kayla ayaa arkaysa ninkan ayaa soo ordaya isaguna faaska wataa, waana ninkii la rabay inuu gabadhan dilo. ninkii kale ayaa arkaya dilaagaha labadii nin markiiba halkii ayay isku dagaalayaan. gabadhana way soo gurguranaysaa, dagaal ayaa dhex maraya aad u adag maadaama uu rabay inuu dilo targetkiisii. isla markiiba Kayla waa soo ordaysaa waxayna doonaysaa inay gabadha badbaadiso halka labadii nin weli ay isdagaalayaan. Kayla waxay doonaysaa inay keynta dib ugu celiso gabadhan si ay meel ugu qariso. garabka ayay soo qabanaysaa gabadhan si ay u caawiso halka labadii nin ay weli isdilayaan. ninkan ayaa la dilay. ninkani keynta ayuu soo galay maadaama targetkiisii ay gabadhan garbaha hayso. isla markiiba Kayla halkan ayaa aragtay waxayna ku qarinaysaa labadan geed dhexdood ilaa markii dambe ay gabadhii ka saartay dusha sare caleemaha geedaha si uusan u arag ninkan doonayay inuu dilo. caleemihii ayay soo qaadaysaa iyadoo dusha sare ka saartay, laakiin markiiba waxa uu soo raacayaa raadka dhiigga gabadha ilaa markii dambe uu arkay gabadhii halkan ku jirta. mindidiisa ayuu soo qaadanayaa, gabadhana waa ay ooyeysaa ilaa markii dambe uu dhagta soo qabtay. waa uu soo jiidayaa waxaanu la soo gelayaa duurka, gacanta ayuu hayaa halka gabadhana ay iska ooyeysa kuna leedahay daahay dilin, laakiin waxaa kama dhegaysanayo. geedkan ayuu kusoo tiiriyey, waa ay baryaysaa waxay ku leedahay hay dilin, laakiin markiiba xagga dambe ayuu ka maray isagoo labadii gacmood soo qabtay. kadibna si xoog ayuu labadii gacmood uga jarayaa. Kayla ayaa ka baxday gabadhii, halkaas ayayna ku dhimatay. Kayla halkan ayay taagan tahay, laakiin isla markiiba ninkan ayaa gadaasheeda soo istaagaya waxaanu doonayaa inuu dilo si uu dhinto ninka iyada loogu talagalay inuu dilo. isla markiiba waa iska celinaysaa ninkii waxayna ku dhacaysaa dhulka. Kayla waxay isku dayaysaa inay isbadbaadiso ilaa markii dambe hoostiisa kasoo dhex baxday. kadibna waxay qabsanaysaa geedkan si uusan u jiidan. mar kale ayay isku soo baxeen ilaa markii dambe uu ninkii qarxay. waa ay yaaban tahay Kayla ninkan cidda dishay, laakiin filimka ayaa sida loogu talagalay daawadayaal. ninkana waxaa la dilay targetkiisii, nin kale ayaa dilay, sidaas ayuu u qarxay. waa ay soo cararaysaa Kayla waxayna soo gelaysaa mar kale duurka. iyadoo ordaysa ayay ugu soo laabanaysaa saaxiibteed, laakiin waxaa arkaysaa saaxiibteediyo meyd ah. way iska ooyeysaa Kayla, rajadeedana aad ayay dhimatay. mindidan ayay soo qaadatay Kayla waxayna rabtaa inay dagaalanto ilaa daqiiqada ugu dambeysa. halkana saaxiib yar waxaa loo baahan yahay hal qof oo keliya inuu ka baxo si uu geemka u winner gareeyo. Kayla waxaa aragtay guryahan halkan ku yaala ilaa markii dambe mid kamid a guryihii ay iska furtay albaabka, kadibna waxay igu soo gelaysaa gudaha. waa ay yaaban tahay waxayna ka yaaban tahay cidda halkan degan ilaa markii dambe ay qolkan usoo dhawaatay waxayna doonaysaa inay albaabkan furto, laakiin markiiba daaqada ayay ka arkaysaa mid kamid a nimankii dilaaga ah oo halkaas marayo. gabadhan ayaa gadaasheeda soo istaagtay, laakiin markiiba qoorta ayay ka jartay. waa ay qeynaysaa waxay ku leedahay garan lahu adiga kuma wadin, waxa ku moodayay nimankii dilayaasha ahaa. gabadhana waxay ku dishay si khalad ah. isla markiiba labadan gabdhood oo kale ordayay arkaya waxayna arkeen gabadhan ay dishay gabadhan. waa ay ooyeysaa gabadhan halkan shiina ay aad u xanaaqayso waxayna ku leedahay maxaa u dishay gabadhan, laakiin waxay ku leedahay anigu ma dilin. anigoo aad u baqsanayay gadaasheeda dama soo istaagtay, kadibna waa istifaacay. isla markiiba gabadhan faaskan ayay soo qaadanaysaa halka shiina ay markiiba dareentay cabsidii. isla markiiba indhaheedii waa isbedeleen waxayna aragtay in mid kamid a gabdhahan la dili doono. si riya ayay ku arkaysaa saaxiibteeda oo halkan ku dhumanaysaa waxayna ogaanaysaa inay saaxiibteed nooshahay Kayla. isla markiiba Kayla waa ay soo naaxaysaa mar kale, kadibna waxay fiirinaysaa gabadhii ay dishay. gabadhan ayay u imaanaysaa waxaana lagu magacaabaa Rose ayay soo ag fariisanaysaa waxayna ku leedahay iga raali ahow ilaa markii dambe gacanta u taagtay. isla markiiba Rose waa ay ka qaaday gabadhan salaanta waxayna u sheegaysaa gabadhan. waxay ku leedahay indhahayga mid kamid a ayaa la saaray, kadibna waxaa lagu xiray GPS waxaan arkayaa wax kasta intaysan dhicin ka hor. isla markiiba mid kamid a dilayaasha ayaa usoo dhawaaday goobtii ay joogeen. daaqada ayay ka arkaysaa iyadoo aad u baqsan Kayla, kadibna waa ay soo ordaysaa iyada iyo saaxiibteeda waxayna isku dayeen inay albaabka xirtaan. Kayla waxay ku leedahay waa inaan dagaalanaa oo isbadbaadinaa. isla markiiba Kayla fikrad cusub ayay keenaysaa. Kaylana waxay doonaysaa inay go'aan qaataan iyaga iyo gabdhahan, balse intii ay go'aanka qaadanayeen daaqada ayaa waxay ka arkayaan ninkan soo socda. isla markiiba waa ay kala cararayaan, mid kastana waxuu ku dhumanayaa meel. Kayla waxay ku dhumatay halkan iyadoo daaqada ka fiirinaysa ninkan meesha uu soo marayo. shiina mindidan ayay haysataa waxay rabtaa inay istifaacdo. dhammaantood waxay rabaan inay dagaalamaan si ay u dilaan ninkan. ninkii albaabka ayuu soo istaagayaa, kadibna waa iska furaya albaabka. gudaha ayuu gurigu u soo galay waxauna ogyahay inay halkan gabdhuhu ku jiraan. isla markiiba waxau soo qabanayaa gabadhii Rose ahayd, kadibna waa uu soo jiidayaa. Kayla waa isku naxaysaa ilaa markii dambe ay soo qaadatay mindideedii. isla markiiba gadaal ayay kaga imaanayaan, kadibna waxay ka furfurayaan Rose. Kayla madaxa ayay birka ka dhufatay ninkii, halka shiina ay caloosh ka gelisay mindi. dhammaantood waa isugu tagayaan ninkan ilaa markii dambe ay albaabka ku xireen. Rose waxay laabta gelinaysaa saaxiibteed Kayla iyadoo ooyeysa. mar kale go'aan kale ayay qaateen, waa ay soo carareen waxayna kasoo baxeen Kayla iyo Rose albaabkii, laakiin markiiba waxay arkayaan ninkan gadaasha dambe kasoo socda. isla markiiba waa ay soo cararayaan Kayla
iyo Rose waxayna dib ugu soo laabanayaan gurigii waxayna ogyihiin in wadajir ay ku guuleysan doonaan isla markiiba xagga dambe ee guriga ayay ka baxaysaa Kayla kadibna waxay u soo baxaysaa banaanka saaxiibteeda iyo waxay ku leedahay soo bax waa ay soo dhawaanaysaa waxayna doonaysaa inay saaxiibteed meesha ka soo saarto laakiin saaxiibteed lagu hayaa waxa uu galay birtan waa inay ka soo bixi laadahay meeshii way ku rafaadsan tahay inay ka soo baxdo godkan halka Shiin ay weli guriga ku dhex jirto waxayna fiirinaysaa daaqada waxa aragtay in mid ka mid ah nimankii dilaaga ahaa uu soo dhawaaday kadibna uu iska soo furay albaabkii Kaylana daaqada ayay ka arkaysaa in la soo galay guriga isla markiiba waxay jiidaysaa saaxiibteed laakiin ninkii dilaaga ahaa waxa uu gacanta ku dhigay gabadhii Rose ahayd waxa uuna haystaa labada gacmood halka labada lagood ay jiidaysa Kayla waa uu ka xoog badiyay ugu dambeynna waa uu jeeday gabadhii Rose ahayd dhulka ayuu dhigtay waxa uuna doonayaa inuu dilo laakiin markiiba Kayla waa soo cartay iyadoo faaskeedii wadataa halka Rose ay ka jartay labadiisii farood markale Rose mindidan ayay soo qaadanaysaa waxayna ka gelinaysaa dhabarka halka Kayla ee madaxa faas ay kaga jabinayso dhulka ayuu ku dhacayaa si xun ayay u dilayaan ninkii laakiin markiiba waxa arkaya ninkan waxaan arkayaa in mid ka mid ah saaxiibadiis la dilaya way ku qaylinaysaa Kayla laakiin ninkii markiiba waa cararaya maadaama ay gabdhahani noqdeen gabdho bahala isla markiiba Kayla banaanka ayay soo baxday waxayna arkaysaa Shiina intii ay wada hadlayeen ayaa la afduubanaya Rose gadaal dambe ayuu kaga imaanayaa ninkan kadibna waxa uu la soo galayaa meeshan guriga dhulka ayuu ku dhufanayaa Rose ayuu rabaa inuu dilo labada gacmood ayuu darbiga u saaray ilaa mid ka mid ah gacmaheedii uu ka taagay Rose mindidan aadka u weyn intii ay murmayeen Shiina iyo Kayla Shiina gadaasheeda dambe waxa ka soo baxay ninkan kadibna waxa uu kaga dhuftay madaxa faas halka ninkii Rose dilayay uu markiiba qarxay maadaama saaxiibtiis la dilay balse saaxiibteed Shiina faas ayaa madaxa looga kala jaray ninkan waxa taargad u ah Kayla ayuu raadinayaa isla markiiba Kayla waa iska celinaysaa ilaa markii dambe ay faaskan soo qaadatay kadibna waxay ka gelisay wadnaha ninkii waxa uu ku dhacay dhulka Rose way aragtaa waxa ay sameynaysaa Kayla ilaa markii dambe Kayla ninkii si xun u dhamaystirtay halkaasna waxa ku dhintay ninkii la rabay inuu iyada dilo saaxiibteed Rose ayay laabta gelinaysaa maadaama Kayla ay badbaaday mana jira cid taargad u ah Kayla hadda doonaysa inay disho ninkan birta wata ayaa soo baxay waxaana rabaa inuu dilo gabadhan Rose ah waa uu daba joogaa waxaana ka arkayaa xagga sare halka Kayla ay raadinaysa saaxiibteed ugu dambeyn waxa heshay meeshii ay saaxiibteed ku jirtay way u soo dhawaanaysaa ilaa markii dambe ay aragtay saaxiibteeda way iska ooyeysaa Kayla ilaa markii dambe saaxiibteeda ay laabta gashatay way dhunkanaysaa maadaama saaxiibteeda ay aad u jeceshahay laakiin Rose way ka masayraysaa waxayna arkaysaa saaxiibtinimada labadan qof ka dhaxaysa aad ay uga masayrsan tahay inay aragto ilaa markii dambe ay aflagaadaysay gabadhan intii filimku socday waxay ku jirtay meeshan cidlada mar kale laabta ay isgelinayaan Kayla iyo saaxiibteed waa ayna xanaaqsan tahay Rose ninkii kor ka daawanaya ayaa yimid dilaaganna waxa uu rabaa inuu dilo Rose isla markiiba waa ay dareentay dhulka ayay ku dhacaysaa waa ayna suuxday Kayla laakiin markiiba gadaal ayay kasoo maraysaa Rose iyadoo dishay gabadhii iyadoo dishay Kayla saaxiibteed kadibna ninkii ayay fiirinaysaa ninkiina waa u qarxay maadaama taargetkeedii ay dishay waa ay soo naaxaysaa mar kale Kayla waxayna fiirinaysaa hareeraheeda halka saaxiibteed Rose ay weli ag fadhido waxayna sugaysaa waxa ay samayn doonto Kayla isla markiiba Kayla waxa aragtay saaxiibteeda oo dhimatay kadibna waa ay ku qaylinaysaa waxay ku leedahay maxaa u dishay saaxiibteed iyadoo aad u qaylinaysaa aad ayay u murugoonaysaa Kayla mana doonaysa inay aragto saaxiibteedii oo meyd ah way iska ooyeysaa kadibna waxay ku leedahay iga tag waa ay kasoo dhaqaaqaysaa waxayna imaanaysaa meeshii xuduud ahayd iyadoo doonaysa inay ka baxdo labadii indhood mid ka mid ayay iska saaraysaa maadaama ay ku jiraan qalabkii ay ku xireen nimankan burcadda kadibna ultrasoonkii waxa uu muujinayaa calaamad cagaaran waa ay fuqsanaysaa madaxii ultrasoonka kadibna waa ay kasoo baxaysaa xuduudda sidaas ayay ku guulaysatay saaxiibayaal daawadayaal filmkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay oo ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto haddii ay tahay markii kugu horeysay aana soo booqatana fadlan subscribe noo saar